gudoomiyaha guddida wanaag fariista iyo xumaan reebista magaalada Hargeysa Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla oo maanta si gaar ah ula hadlayay warbaahinta Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay dhalinyarada dhaqan xumada ku faafisa baraha bulshada ay ku kulanto kuwaas oo ugu magac daray hore loo soconaya isla markaasina soo bandhigaya waxyaabo anshax suuban ka baxsan iyo dhaqankeena wanaagsan. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla gudoomiyaha guddida wanaag fariista iyo xumaan reebista magaalada Hargeysa ayaa waxa uu digniin adag u diray waalidiinta dhalay da'yartaasi iyagu faafinaya dhaqan xumada isla markaasina ku soo bandhigaya goobaha iyo baraha ay bulshada ku waxaan uu soo jeediyay in ay gacan bir ku qabtaan awlaadaasi isla markaasina ay ku soo leexiyaan tarbiyada wanaagsan. xayawaan uu noqon markuu Ilaahay tilmaamay gaalada qaar kamid ah wuxuu yiri ulay kala cambarhum adalb yaani inay ka xusixun yihiin bulshada xayawaanka inay ka liitaan maxaa yeelay waxa kuugu daliilay waxa weeye qiyamkii akhlaaqiga baa ka lumay oo waxa weeyaan way isdhex boodeen yaani ma kala socno wixii wanaagsanaa iyo xumaamay kala socon bas dhex dhigay maanta waxa socoto wixii xumaa in wax wanaagsan loo muujiyo wixii wanaagsanaana wax xun in laga dhigo way noo muuqata marka nabigu wuxuu yiri al-hayaa min al-iimaan qofku inuu xishoodo waxay ka mid tahay iimaankiisa ka mid yaani imika waanu asturannahay dariiqaanu marayna qofna ma doonayo in cawradiisa la arko qofna ma doonayo ceebtiisa in la ogaado laakiin social media wuxuu soo kordhiyay dad aan nagu diinahayn waan nagu dhaqanahayn waan islaam ahayn waxna xeerinayn in lagu daydo horumar baan ku gaaraya been way ku gaari maayo takhallufna uu ka qaadaya diin darna uu ka qaadaya ara ilaahayna uu ka qaadaya marka waxaan leenahay waalidka ciyaalkan dhalay way garanayaan anigu waxaan ogaaday dalka intaan joogay cilaaqada ka dhaxaysa waalidkii ciyaalka carruurta inay kala fog yihiin wax alla waxay ka ogyihiin ma jiro carruur 10 jira 12 jira ayaan wada fariisanaa internetka waxyaalaha ay daawadaan wad ka naxaysa warkuu ilaameeyay Facebook ku wata inantii mobilkeeda ku wata waxyaalaha ugu xumaa bay ku wata hatta inta loo yar la baari maayo marka waxaan roonayaa waalidka carruurtooda la xisaabtama la fariistaan la sheekaystaan ma taqaan waayahooda ka wareystaan akhlaaqda wanaagsan ha u tilmaamaan beedka Ilaahay u soo keenaan ha ka dhigo inuu bari isaga bedelayo yusuf saati isaga jirna inuu isagu bari bedelayo ha ka dhigaan oran waalidka Ilaahay ka cabsada carruurtan adduunka akhrinta waday doolayso inay ku anfacdo akhiradoodii adduunta baanta akhirada ku dada dhanka kale gudoomiyaha guddida wanaag fariista iyo xumaan reebista magaalada Hargeysa Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla ayaa waxa uu sheegay ka guddi ahaan in ay gacan bir ku qaban doonaan isla markaasina ay waajihi doonaan sida ay wax uga qaban lahaayeen da'yartaasi iyagu soo bandhigaya dhaqamada ku cusub baraha bulshada ay ku kulanto sidoo kale waxa uu fariin u diray ciidamada booliska Soomaaliland oo uu soo jeediyay in ay kala hawlgalaan hawshaasi sidii wax looga qaban lahaa da'yartaasi iyagu dhaqankii ka leexday gudoomiyaha guddida wanaag fariista iyo xumaan reebista magaalada Hargeysa Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla oo umurtaasi ka hadlay hadaladiisii kamid ahaa waxay nooga qorsheysan marka hore inaan u naseexayno haddii naseexada qaadan waayaan inaan sharciga la tiigsan isla joogta dalka qaanuun baa ka yaala markaan maxkamadda tagno waliba waxaan leeyahay isteeshanada booliska taliyaha iyo taliyayaasha booliska haysta waxay xaq u leeyihiin inay isla joogta faaxishada dariiq ku sameeyaan inay soo qabtaan ay maxkamadda u gudbiyaan waxa u yar 6 bilood oo xariga u yar 6 bilood oo xariga ayaa u qof alla qofkii ku xadgudba akhlaaqdeena iyo diinteena iyo dhaqanka ku xadgudba in la soo qabto oo maxkamadda la geeyo oo la xukumo waa xadka uu yeelanayo yaani sidoo uga joogsado waxaan foosha xun marka waxa wanaagsan annaga waxa inoo qorshaysan wax kala maaha inaan ummadda u digno oo meelaha meedaanada iyo masaajidada iyo meelaha la isugu yimaada hatta social media anagu waxaan ku leenahay Facebook guddiga wanaag fariis waxaan ku leenahay mataqaan Facebook waan ku leenahay waxaan nagu kalifeenaan soo galno waxa weey inaan dadka uga sheegno wanaagiga iyo khayrka xumadana uga reebno oo u tilmaano dariiqa sax ee wanaagsan ee adduunka iyo aakhira ku liibaanaya u dambeeyay ayaa dhalinyaro ku dhaqan guud ahaanba Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa waxay baraha bulshada ku soo bandhigayeen sawirro iyagu aan indhaha u fiicnayn isla markaasina ka leexsan dhaqankeenii suubanaa haddaba daawadayaal sawirradaasi ayaa waxa kamid ah kuwa hadda idin muuqda isla markaasina waxa ay da'yartani iyagu ka weecdeen dhaqankeenii wanaagsanaa waxaanay soo bandhigayaan sawirro iyagu aan bulshada u fiicnayn isla markaasina ka turjumaya dhaqanno dad shisheeye Boqor Axmed Cabdi warbaahinta Soomaaliya CNN magaalada Hargeysa.